shirkadda Google-ka waxay bilowday ama ay qorsheynaysaaba in ay malaayiin kaneeco ah ay ku sii dayso gobolka California ee dalka Mareykanka. mashruucan waxay ugu magac dartay Dibak. Arrintan aad ay ula yaaban tahay oo kaneeco dunida lagu sii daynay ayaa aad ula yaaban tahay. arrimahan oo dhan muuqaalkan ayaad ku ogaan doontaa, bal saaxiib intaan muuqaalka bilaawin waxaa idinka codsanayaa inaad muuqaalkayga like gareysaan, page-kana aad soo follow gareysaan. aad iyo aad ay u mahadsantihiin. ugu horreyn dunida waxaa ku nool 3500 oo kaneeco oo kala duwan. waa 3500 oo kaneecooyin kala duwan. haddana kaneecooyinkan way si kala halis badan yihiin. nooca ugu halista badan waxaa loo yaqaanaa Aedes aegypti. waa nooca ugu halista badan dhammaan kaneecooyinkan ka kooban 3500. sababtoo ah noocan waxay aad u faafisaa cudurrada kale ah xumada, malaariyada iyo weliba cudurro kale oo aad u tiro badan. arrintan oo kaneecada ka dhigtay in ay noqoto xayawaanka dila bini'aadanka ugu badan sanad kasta marka loo eego dhammaan nooleyaasha kale ee dunida ku nool. yacni kaneecadu waxay dishaa inta ay dilaan nooleyaasha kale oo dhan oo dunida ku nool. ayna ku jiraan dugaagta kala duwan, masaska kala duwan, dhammaan nooleyaashan marka la isku daro kaneecada ayaa ka badan inta bini'aadan ay disho sanad kasta. si arrinkan loola dagaalamo, kooxda loo yaqaano Dibak oo ka tirsan shirkadda Google-ka ayaa waxay soo saareen kaneecooyin gaar ah. kooxdani waxay soo korinayaan malaayiin kaneeco ah ayagoo kala saaraya midka labka ah iyo weliba midka dhadiga ah. sababtoo ah midda labka ah ma ahan midda bini'aadanka qaniinta ama midda sababta cudurrada. sidaa darteed midka labka ah ayaa lasoo qabanayaa, kadibna waxaa lagu talaalayaa bakteeriya dabiici ah oo loo yaqaano Wolbachia. kadib kaneecooyinkan labka ah waxaa laga dhigaa kuwo aan tarmin, balse weli waa kaneecooyin aan waxyeello lahayn. ugu dambeyn kaneecooyinkan aan tarmin waxaa lagu sii daayayaa deegaanada ay joogaan kaneecooyinka kale ee dhadiga ah ama kuwa duurjoogta ah. markaas kadib kaneecooyinkan labka ah iyo weliba kuwii dhadiga ah ayaa isla falgalaya. ukumaha ka dhashta meeshaas ma sii jabaan ama ma sii tarmi karaan. arrintan muddo kadib waxay yareysaa tirada kaneecada ee dunida ku sugan. kooxdan arrinkan mar hore ayay bilowdayba. waxay 10 milyan oo noocan kaneecada ay sameeyeen ay ku sii daayeen dalka Singapore. natiijadana mar hore ayay arkeen oo 80% kaneecada ku sugnayd dalkaas ayaa aad u yaraatay. hadda waxay qorsheynayaan in ay ku sameeyaan gudaha dalka Mareykanka ayagoo fasax ama saxiix ka sugayo dowladda federaalka ee Mareykanka. waxayna rabaan in ay si gaar ah ugu beeraan arrintan gobolada California iyo weliba Florida oo ah gobolada ugu kaneecada badan dalka Mareykanka. sideed u aragtaa ficilkan ay sameynayso shirkadda Google? aad iyo aad u mahadsan tahay daawashada aad muuqaalka daawatay. fadlan muuqaalka like garee, page-kana ku soo biira si aad u heshaan macluumaadyo xiiso badan oo dunida ku saabsan.